بسم الله السلام عليكم ورحمة muuqaalkan haddii ilaah yiraahdo waxaan kusoo qaadanaynaa wax loo yaqaano spaced repetition system ama spacing effect oo macnaheedu yahay xogta aydan weli is arkin iyo kuwa aad aragtay balse kugu adkaaday xogta aydan weli is arkin ee kugu cusub iyo kuwa aad aragtay balse kugu adkaaday labadooduba waxaa laga rabaa inaad ku celceliso in ka badan inta ay mudan yihiin xogta indhahaagu ay ku bateen ee aad taqaano. Haddii aan si kale u dhigo, xogta aydan weli is arkin iyo kuwa aad aragtay balse kugu adkaaday labadooduba waa inaad ku bixisaa ku noqnoqoshadooda waqti ka badan waqtigii aad ku bixin lahayd xog aad si fiican u taqaano oo ay indhahaagu ku bateen ilaa ay fudayd kula noqonayso xogtaas aad dareemayso inay kugu adag tahay adiga. Waxay ka dhigan tahay xog adiga kugu adag iyo xog adiga kugu fudud keebaa kaa mudan inaad waqti badan siiso oo aad ku bixiso. Dabcan xogta adiga kugu adag ayaad waqtiga ku bixinaysaa oo aad muhiimadda siinaysaa. Xogta aan ka hadlayno waa maxay? Xogta aan ka hadlayno dabcan waxa weeyaan waa casharradaadan ka hadlaynaa. Waa casharrada. Intaas kuma eka fikradani sidoo kale waxyaabaha ay farta noogu fiiqayso ee ay nafarayso. Sidoo kale waxay leedahay fadhiyada aad u fariisanayso wax akhrisyadaadana waa inaad kala fogeysaa. Oo tusaale ahaan ka soo qaad hal mawduuc ayaad akhriskiisa faraha kula jirtaa. Maanta haddii aad mawduucaas akhriso berito looma baahna inaad ku noqoto. Fadhigaaga xiga ee akhriska isla mawduucaas waa inaad ka dhigtaa ilaa 3 maalmood kadib. Haddana fadhiga xiga ee isla mawduucaas waxaad ka dhiganaysaa 7 maalmood kadib. Haddana safar kale oo 14 maalmood kadib inaad ka soonto mawduucaas. Markuu dhamaadana aad u fariisato akhriskiisa. Haddana bil kadib inaad ka soomanaato mawduucaas. Markay bishaas dhamaatana aad u fariisato akhriskiisa. Haddana 2 bilood kadib inaad ka soo sidaad dareemayso waqtigii waa la kala fogeynayaa. Spaced repetition baa loo yaqaanaa ama waa spacing effect. Sidaasaa markaa ay ku sameynaysaa long term memory ama xusuus ay adag tahay inay guurto ayay qofka siinaysaa. Waana farsamo la tijaabiyey oo cilmi baaris ku saleysan la ogaaday waxtarkeeda ilaa haddana la isticmaalo dabcan. Sida markaa noo muuqata spaced repetition ama spacing effect waxay cagsi ku tahay sida caadiga ah ee aan anagu wax u akhrisano oo anagu hadda waxaan sameynaa maalin kasta laga yaabaa in hal mawduuc la soo celceliyo. Isaga qudhiisa waxaa laga yaabaa in usbuuc looga bixi waayo. Marka cagsi bay ku tahay. Waxay ku leedahay waa inaad kala fogeysaa fadhiyada aad u fariisanayso akhrintaada. Waana dabcan culeysyada aan kala kulannay oo akhriska maalin kasta iyo nidaamyadan caadiga ah ee aan isticmaalno waxay noo horseedeen ama ayna dhaxal siiyeen ayaan dhihi karnaa ilooshiyaha aan maanta ka cabanayno iyo dhibkan na haysta. Iyadu markaa way kasoo horjeedaa. Iyadu waxay liidaysaa forgetting curve wax loo yaqaano oo aan haddeer ka soo hadalnay. Waxay abuuraysaa markaa wax la yiraahdo long term memory oo ah xusuus ay adag tahay inay guurto. Bal hadda waan aragno qaabkay u liidayso ama qaabkay uga adkaanayso forgetting curve oo isagu ah cilada loo baahan yahay in laga adkaado. Haddii aan sharaxaad ka bixino jaantuska meesha noogu qoran. Markii hore waxay ahayd forgetting curve oo ah jaantuskan imika noo muuqda. Sidaasay wax ahaayeen wax revisionist ama wax muraajaceen lama sameyneynin. Xusuustuna way dhacaysay markii waqtigu dheeraado ama uu sii fogaadaba. Laakiin spaced repetition ama spacing effect marka la joogo arrimuhu sidii hore way ka duwan yihiin. Jaantuska hadda inoo muuqda waa jaantuska muujinaya in forgetting curve laga adkaaday oo ay soo faragelisay spaced repetition ama spacing effect.
marka qaabkii usoo wax uga bedelayso forgetting curve-ga ama ay uga adkaanayso waa qaabkan. Waxaan arkaynaa sida caadiga forgetting curve inuu maaragtay kan yahay qalloocsankii rasmiga ah waa kaasa. Laakiin spaced repetition-ka waxay ma arkaysaa ka dhigaysaa curve-gan ama qalloocsankan mid siman oo ama ku dhow inuu simanaado. Tusaale ahaan haddaan ka bilowno qalloocsankan oo dabcan ka dhigan memory-gii ama xusuustii inay hoos u dhacayso, isagoo halkaa maraya oo ay sii socdo maaragtay 60% yacni uu ku dhow yahay oo hoos u sii dhici rabo ayaad soo qabato akhris ku bilowday. Markaad akhris ku bilowdayna waxaa dhacday inaad 100% cilmigii haddana aad dib u hanato xusuustiisii. Haddana waxaa dhacday inaad sii deyso ood faraha ka qaado ood ka soomanaato in muddo ah, sababtoo adiga waxaad dabaqaysaa spaced repetition spacing effect oo ah in la kala fogeeyo fadhiyada wax akhrisyadaada. Marka aad xoogaa kala fogeysay ood space u dhexeysiisay fadhiyada wax akhrisyadaada, waxaa dhacay illooshiye yar baa dhacay. Sidoo kale illooshiyahaasi sidoo kale waxa uu ka fudud yahay ama uu ka sahlan yahay ama uu ka fiican yahay kii hore oo salka joogay. Kan hadda wuxuu joogaa meel sare, isagoo meel sare jooga ayaad soo qabatay haddana cilmigii waad akhrisay 100% baad dib u hanatay xusuus ahaan. Haddana waxaad dabaqday spaced repetition system-kii baad dabaqday, akhriskii baad ka soomanaatay in muddo ah oo dabcan ayaad ka soomanaatay. Haddana waxaa dhacday in ay xusuustu xoogaa yara hoos u dhacdo, laakiinse ka fiican kii kale ee ka horreeyay uu ka fiican yahay. Haddana iyadoo halkaa ay marayso ayaad ku celisay, dib baad u hanatay 100% xusuustii darsigaas. Haddana waxaad dabaqday spaced repetition-kii oo ah inaad kala fogeyso, inaad maaragtay in muddo ah ka soomanaato wax akhrintii. Sidaanu markaa noqday graafkii ama markay graafkii sidaan u qalloocay waxaa laga dhigay ama loo dhaweeyay mid siman. Mid siman macnaheedu maxay ka dhigan tahay? U fiirso falaarahan waxaan meesha u dhigay in aad yacni in isbarbardhig lagu sameeyo heerka simanaanta iyo sida ay maaragtay u kala sarreeyaan. Halkan oo kale salku joogay 60% joogay, kan kale ku xiga wuu ka siman yahay, kan wuxuu joogaa 60 iyo wax ka koreeya. Haddii kan kale ku xiga loo fiiriyo 80 buu ku dhow yahay, haddii kan loo fiiriyo waa 80 iyo xoogaa. Annaga waxaa noo muhiim ahayd inaan xusuusta ka adkaano, inaan xusuusta kor u qaadno ilaa aan 100 geeno ama se aan ka agdhoweyno. Marka sidaasi wax noqonaya. Waxaa xusid mudan fikraddan spaced repetition-ka ama spacing effect iyada oo qaawan haddii la yiraahdo waa la dhaqan gelinayaa oo akhriska lagu dabaqayaa, way adag tahay in si toos ah loo joogteeyo. Aad bay culus tahay, waana sababta loo soo ikhtiraacay applications xambaari kara ama applications yacni lagu jeclaysiinayo dadka oo fikraddan iyada ah lagu dhex abuuray. Marka dadku way la tacaali karaan isticmaalka iyo adeegsiga iyo dabaqaadda fikraddan iyada ah iyagoo isticmaalaya applicationska flashcards-ka ah sida Anki, Quizlet, Remnotes, Supermemo iyo kuwa kale la midka ahba. Ugu dambeyntii waxaan muuqaalka kusoo gunaanadeynaa insha Allah qaabka ay u shaqeeyaan, qaabka asaasiga ah ee ay ka siman yihiin flashcards-ku ama digital ha noqdeen ama physical ha noqdeen. Nidaamka asaasiga ah ee ay u shaqeeyaan waxa weeyaan qaabkan weeye. Halkan waxaa noo yaala 4 kartoon baa noo yaala. Waliba noocani waa nooca physicalka ah ee waraaqaha ah waaye. Ama waraaqaha noqdaan ama digital ha noqdaan, kulli waxay ka siman yihiin shaqo guud bay ka siman yihiin. 4 kartoon baa meeshan uga jeednaa. 4taas kartoon waxaa lagu ridayaa dabcan su'aalo, waa kaarar ama waraaqo su'aal iyo jawaab. Dabcan flashcard-ku
xagga hore su'aal buu ku leeyahay xagga dambena jawaab buu ku leeyahay marka warqadu waa sidaas warqadu xagga hore ku leedahay su'aal xagga dambena waxay ku leedahay jawaab yaa sameeyay adiga dabcan sameeyay oo ka sameeyay casharka halkan marka waxa inoo yaala boxka ugu horeeya waa maalin kasta waxaa ku jira su'aalahaas maalin kasta aad fiirinaysaa sababtoo ah aad bay kugu adag yihiin haddii qaar ka mid ah aad soo qabato soo furto oo aad ka jawaabto sida saxda ah uga jawaabto waxaad ku ridaysaa boxka xiga markaad ku riddo waad ka nasanaysaa ilaa iyo beri waagu ha kuu beriyo ma taabanaysid markuu waagu beriyo ayaad soo furaysaa haddii aad ka jawaabto haddana su'aalaha aad meeshaas ku gurtay hal su'aal ama laba su'aal ama saddex su'aal waxay doonaan tirada ay doonaan ba hala ekaadeen haddii aad ka jawaabto waxaad u gudbinaysaa haddana boxka saddexaad markay galaan waxay ka dhigan tahay isbuuc ay sugayaan isbuuc kadib ma taabanaysid yani isbuuc kadib ayaad taabanaysaa oo kaliya oo aad furaysaa markaad furto haddii aad weli ka jawaabayso sidii saxneed aad uga jawaabayso waad sii gudbinaysaa waad sii dhaafinaysaa markay boxkaas afraad galaan waxay ka dhigan tahay 2 isbuuc ayay sugayaan 2 isbuuc ma taabanaysid markay dhamaato 2 isbuuc ayaad furaysaa haddii aad ka jawaabto haddana box kale aad ku ridaysaa oo maaragtay isaguna yani ku fogeynaya muxuu ahaa maalmaha marka waxay ka dhigan tahay waxaad dabaqaysaa spaced repetition systemka waad dabaqaysaa dabcan marka waa sidaas waa haddii aad saxdo qaybtaas kore qaybtan hoose fiiri haddii aad su'aal khalado su'aashuna ha ku jirto heer kasta oo kamid ah heerarkan labaad saddexaad afraad heer kasta oo ay ku jirto marba haddii aad khalado waxaa la geenayaa ama lagu soo ridi doonaa waxaa dib loogu soo celin doonaa boxka ugu horeeya ee maalin kasta sababtoo ah waad soo khaladay wuu kugu adkaaday khaladka ma aha inaad sii socotiiso waa inaad muxuu ahaa iskarataa waxaad ku soo celinaysaa booskiisii haddana waad sii wadaysaa ilaa aad ka saxdo haddaad khalado dib baad u soo celinaysaa haddana haddaad saxdo waa hore u sii socodsiinaysaa marka qaabkaasay u shaqeeyaan flash cardisku ama digital ha noqdeen ama physical ha noqdeen digitalka iyo physicalkana waxaa la doorbidaa oo hadda isticmaalkoodu badan yahay waa digital flash cardiska sida applicationska anki iyo wixii kale la midka